maansadan waxaa la yidhaahdaa tixdan qubana la yidhaahdaa waana qaybtiidii koowaad qumanaha qaybtiisii koowaad waxaanay diiradda saaraysaa kolbad xaaladaha waddanka iyo wacdiga markaa taagan maansadan waxay ka qaybtan waxay ka laga curiyey soo celintii haamaha iyo sidii dadku u arkay oo dadku labada qaybood u kala qaybsamay ayaa halkan waxa isku qardhaafayaan bay isku qoonsanayaan odaygii markii hore bixiyay Siiraanyo iyo madaxweynaha nimanka soo celiyay Muuse Bixi halkaasay bahashu ka bilaabaysaa waana qubane waxa loo yiri magaceeda sidaad u fahmaysid waa wax aan dhamaanayno socdo marba xaaladda jirta ayaa ka warrami doontaa haddii la yiraahdo marka waxay ku bilaabaysaa Muuse bilaabaya habeen maalintii uu soo celiyay habeennimadeedii subaxnimadeedii buu arkay odaygii meesha taagan dabateysagii baa bilaabay wuxuu ka bilaabayaa adduunyadu waa qariib maalmaha hare waa qaliil hubiyo waa dhoobaqaad dushay ka qalaalan tahay hoos bay u quluulaysaa inay quustana u dhow qiyaasiya waa halbeeg macnaha qaybkana ma ogin taariikhduna way isqortaa xogaa qoraxdii dhacday qarniga tegay bay xustaa balanqotadeedan iyo sugaantaydin qaloo murtida aanu qildaye ninkii qosol doonayo qubanahan ila wadaag duqii qoomaha lahaa qafiifay markuu hubsaday inuu qormadii hantiyay xilbaasluhu qulub ku riday cuqliya qabqabluhu u baxay duqii qaleexee bulshada qoqobaha kala dhex dhigay halkuu u qabaani laa iimaanku qorqoormayee kelida qowlaysan jiray dadkana qarafaysta yiri qaadaama dhargaha ka dhigay maxaa harqoodaarka iyo talow qololkayga dhigay hadalkii ayuu wadaadkii maqlaya markaa Siiraanyo ayaa hadlaya ilaa aadmi qiimo ma leh qofkii aad wanaajisaa xumaan buu kugu qayaa markaan qoondada lahaa qoraansigu igu badnaa arlada ka qadhaaban jiray quwaxsan ninkaan ku yidhi ninkaan qalmaha irmaan haneedka ha kuu qabtoo naf qaybsada aan lahaa qaatee adna qaado oo qandigan aad sidata iyo qabaalada buuxsa idhi hadalka aan qaawiye abaalgud qiyaamadiyo qadaf iyo iiga dhigay xin iyo nolol quudhuwaa cidnaba u qabsoominow kar qaadanow yeelkadaa muusoo yaabay ayaa ku soo noqday oo yidhiisna baleegay qabarkan dhacay tusbax qumanaa ileen qoortow suran aadmigii ninkaan qaydka saaraya haddana iigu soo quturan intaan qalad kaa tirsaday dhib iyo amba ciil qarsaday anaan ficil qaadanine cidlaad ka qamow jir Siiraanyo ayaa ku soo noqday markaa ninkan isqaluufayow wixii haalu aan qabtiyo inaad raadkayga qoyin iskiisad u qaadata miyaanay qalad ahayn Muuse ku soo noqday adaa qayaxo ileen hadalkana qaawiye qasow war yar aan ku dhaho meelaad qalibtoo rogtoo intaad qulubaa gadiday hore u qaneecaad tirtiya ninkaa daasada qastiga qortow gelisay birtaa miyaad qalad saaraysaa buuri Siiraanyo markaa ku soo noqday oo hadallada adag la yaabay qolxadaad isku yeelisay waa maxay isqandhoorintani waryaaqo yar ila hadal haddaanad qarad lahayn qaraarkii haamihii iyo garoomada qoondadii cidnaba aanan ka qarin qadhiirkuna nuugu jiray xaqalqalinkana lahaa qarashkuna uu ka galay ragga qadhareetiga ah sidii loogu wada qanciyo waliba qosolkiyo ogeyd wixii gacan qaad ka dhacay inaad dib u soo qodaamiyaan qalad ahayn Muuse ayaa markaa ku soo noqday dhidarka xabaalqooda qudhun buu u dhaadhacaa qardoofadu way xuntee waryaa ina qilyarow ilaahi qarankani lahaa qareenkiya kaabihii sidii qooriga suways dhaqaalaha qaraqa iyo hantida laga qaadi jiray adaa qaydo u xidhay badhbadhragu sii qufulay badhbadhragu qofolo midba ninuu sii qufulay wax qabadna nooga dhigay buu oranay Siiraanyo xanaaqsan ayaa dib ugu soo noqday waryaa qaylqaylada iyo halkay isqaloocintani qortaagani kaaga yimi maanaan qarankii dhammaa anigu qacantaada gelin dalkana qoodh kaaga dhigin maanaan qasrigaada ogeyd anigu qunyar kaaga bixin askarigu qafalsanaa dabeecad casrigu qafal xumaa dabeecad qalabsanaa qamaamurtiya raggii qaarkood iga ka dhawaa kursigan qoolaalin jiray miyaanan qool ku xidhin markaan qamacay arkeen intay malabkii qubeen habeennimo kaa qulqulin dahaarka ka qaadin iyo qubkii ay ku hoos jireen qofkii damac yaray ka galo miyaanan qoonsan jirin si aan cidi kuu qurdiyin maanan qobtaliyo samayn jeegaan iyo qansabaas Muuse oo xanaaqay ayaa markaa dib ugu soo noqday tan iyo qaaxanuga siyaasigu waa qabaan cid buu u qidmaynayaa qalfoofka xaadiree qalbiga iyo meel kaluu
qulubtana kala jira mar buu qaac kugu bixiyo sidii malab kuu qotomo dab iyo qiiq kugu shida intuu ku qanjiiriyo qaniiyana kugu nabu qadar ku afuufaya dad qal iyo waa durwa qowlaanada dhiig ku loo ogo waa nar qabow siyaasigu qalabsana qanaaca laawayow maxaa gacantaygu jira maxeeradan qalaalanayo sidii qalin shubatadii qumbahan aad gororsotiyo qabadiyo hanta maran maxaa gacantaygu jira ma qormada dhaxal tirtee qabyada ugu tala gashee anaad qootana ka tegin maxaa gacantaygu jira ma qalwadan halaqgalka qasrina aad ku sheegaysaa maxaa gacantaygu jira ma kursigan qoqondhada iyo qodaxda aad kaga tagtay waliba qiiraha ah maxaa gacantaygu jira ma qaydarkan la isku nacay dadkan kala qaybsan yee qiyaamaha taagan yee siiraanyo oo hadalladan adag la yaabay ayaa dib ugu soo noqday qorshaha iyo ha isku dayin inaad arrimaha qasto qunyar socodkiyo aduu qabsoonkuna ku danyee qiyaal ka baxbaan ku muuse oo wali caradii qaba ayaa wuxuu leeyahay qaar baad shafaysaa intaa cilaad qardajeexaysaa indhaha kala qaad indhaha qabsoo muddo dheer hadday qabiil kugu saacideen cadkii qaydhnaa bislaa caqligaa qaangaadh ku dhow qolo iyo reer ka tegey bulshadan qiiraysan ee qaniinsan dibnaa bal eeg waxay quudaraynaysaa inta qaankaaga maqan dekeduna qayb ka tahay ana qasab bay ku tahay haddeer go'aan qaadashadu ee qaynuunka ilaaliyo qarqarsigana iskeeg wuxuu leeyahay yaanan ku xidhine xadhigga iska ilaali fixdii qubane qaybteedii koowaad halkaasay ku dhammaatay waxaa balanteenu ay tahay qaybta labaad iyo qubane hadduu alla yidhaahdo